السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ريت الوداع وسلامتين دل إيه دبد مركز عجوبتان halkaan aad arkaysaan waxa weeye FCHK degmada Galdogob ismiisa waa u jeedaan meesha uu marayo saddexda qol baa la wareejiyay halkaan waa biirtarka dibadda saddex qol ayaa la wareejiyay waa isku tashi reer Galdogob isku tashadeen maanta waxa xaraga ka jiray oo yimid wasiirka caafimaadka dawladda Puntland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda isku duwaha gobolka dhammaan madaxda caafimaadka ee Puntland baa timid xariga laga jaray waa la soo wareystay ilaa xalay wax hadda ay wadeen ma jirin laakiin ballanqaad buu sameeyay isku tashigaan in wax laga qabanayo insha Allah taala qofkii wax qabsaday ayaana wax lala qabanayaa hay'ado badan oo rajaab noo muujiyay waa isku soo noqon doonaa dhammaan degmada uu kormeeray xarumaha caafimaadka ee degmada MCHda iyo hospitaalka iyo dhammaan uu kormeeray marka waad u jeedaan meesha ay marayso halkan reer Galdogob baa isku tashigoodii baa intaan soo gaarsiisay runtii waa wax Ilaahay lagu mahadiyo waa wax aad loogu farxo hadda tolkii guud oo isxil qaamay oo hawshan curiyay oo maskaxdooda iyo fikirkooda ay ka timid oo qaybta weyn ka ahaa waxa la rabaa dadaalkii in la bajibaaro halkii laga sii wado insha Allah horay iyo horumar baan gaarnay guulo oo weyn oo noo soo hoyday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkaan soo gaarno wasiirkii mar dhow buu naga tagay qaali ka aada sawirro goosgoos baa soo diray oo mataqaana telefoonka iga buuxay meel buuqan waa ku jiro intaan hawada ka maqnaana xogaa mashquul asaga ama bixiisii inaan la ogaano mataqaana meelaha uu marayo baan la soconay marka waa Ilaahay mahadiis waa u jeedaan qolalkan si ugu go'an yihiin inta la kiciyay inta la mariyay waxaan waa qolalkii marka ma sha Allah weeye madaxdii tala wadaag iyo guud ahaan tolka reer tala wadaag halkan ku jira waa in hawshii sidii loo waday la dardargeliyaa aan laga caajisin waa in guushu waa iyo mataqaana gobonimada waa wax yar cagaha dhulkaas ku sii haysid waa in horumarka iyo isku tirsanaanta iyo isku tashiga aan laga caajisin waa in dadaalkii isku tashiga ee Beesha Reer Maxamuud aan laga caajisin waa in guulo la taaban karo laga hooyaa insha Allah taala laga soo hooyaa waa in magac la gaarsiiyaa وإنتن هدينا لك دلقاء أنت على دلقاء أنت كلا لكفيو أما الدولة دي وهايدو أي كفيان خرمرك مرة على عاجزينه مثلا هولي دنت جود لو تهجلي وحيالك أو مشروعية أو عصب أو دنت جود أو بشر محمود له رجالية إن شاء الله تعالى سيد عيال عبر الشدة عافماتك وحي اللمي ده آديات بني السلام هياه ما أنت فرحت بين نوت هاي لا حلا وسيلك وهو تشوفني وحب ما نكوه هذا اللي ballanqaadyo badan haday tahay xagga shaqaalaha iyo tayintooda iyo tababaradooda iyo haday tahay dhisitaanka meeshan intaba wax badan baan kala wada hadalnay runtii ballanqaad fiican iyo rajo fiican baan ku kala tagnay si fiican baan isku soo macsalaameynay aad iyo aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baan idin salaamayaa dadaalka hal la wada baan leeyahay tolka la waday dhulkan inta wareegsan ma inta shana asaga waxa iska MCHka inta dhulka banaan arkaysan ka horeeya waxyaalaha uu nalaha wasiirku waxa kamid ah idinku dhulaanayeen ku dhicin dhulka mar walba ka fakara oo dhulka balaarsada buu lahaa runtii waa rajo fiican iyo hididiro fiican aad iyo aad baad mahadsantihiin dadaalka iyo mataqaana isku jiirsanaanta iyo isku tashiga hal la wado halka hal laga wado hadda wata anagu bilownay hawshii waa artaan reer Galdogob markii aad naga mataqaana tala wadaag iyo dadkii markii hawshan aan ku haleynay xogaa ay naga cagajido naga daaheen yaan lagu haasku marnaa waxaan reeyo cidna maanta yaan ku haleynay wasiirkaas bixitaankiisa iyo mataqaana imaatinkiisa aan ka faa'iideysano hawshaasiisa meel kale nooga wareegin ayadina Ilaahay waa noo hirgeliyay aad baan idin salaamaya tolka rag iyo dumar madaxa sharafta ee maamulka tala wadaag aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Jaamac Diito jooga degmada Galdogob waan salaamaya dhamaantiin salaamu calaykum